bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaa kusoo dhawaataan mar kale iyo barnaamijkeennii fanka iyo sugaanta aanu hadahayo kale idinka soo gudbino telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan barnaamijka fanka iyo sugaanta oo daawadayaal inihii u dambeeyay aan kusoo qadan jirnay barnaamijyo ku saabsan dhanka sugaanta afka soomaaliga ayaa waxaa inoogu marti ahaa guulad ayaanle axmed cumar oo ahaa cilmi baadhe dhanka luqadda afka soomaaliga iyo sugaanta soomaalida iyo qoraalka inta badan ku sameeyay cilmi baadhis dheeraada guulad ayaanle oo barnaamijka inoogu marti ah ayaa toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qodob ka hadlaya dhanka faraha wax lagu qoro bini aadamku adeegsado iyadoo si gaarana aynu eegi doono farta soomaaliga aynu leenahay iyo bal hadda asal ahaan bartay ka soo jeedo iyo qoraalka guud ahaanba wax lagu qoro bilowgiisii inta uu qaybsamo iyo asalkii hore halka laga ikhtiraacay ama si cidda bilowday guuleed kusoo dhawo barnaamijka bal hadda guud ahaan faraha markii ugu horeysay wax la qoray ama la bilaabay ama sida lagu helay aynu ka bilowno bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay mubarak faraha horta qoraalkan farta uu daaweyn yahay sax run ahaantii waxa weeye wuxuu ku jiraa waxyaalaha ay ku soo kordhisay sida imika xusan ee taariikhda lagu hayo ilbaxnimadii faraacintu inkastoo ragga qaar ay qabaan in farta qoraalka fartu ay ka da'weyn tahay 5,000 sannadood ee loo tirinayo inay faraacintu bilowday hieroglyphic inay ka da'weyn tahay oo horteed jirtay horteed la qorayay waynagan ayaantii hore ka sheekaynay faraacintu inay halkan ka tageen taasi waxay markaayna tusinaysaa inay farta laftigeeda ay halkan ka qaateen oo imika waxaa jira matan loo kale sida ay soo saartay dawladdii Soomaaliya akademigii hidaha iyo fanku uu soo saaray waxaa jira godad aan weli fartoodii aan la jabinin oo u noqonaya muxuu ahaaye raadraac u noqonaya in farta Soomaaligu ay ahayd fartii ugu horeysay waxa kamid ah godad ku yaala laascaanood agteeda oo godka xararka iyo qubiyaali la yiraahdo deegaan la yiraahdo laascaanood agteeda iyo saddex deegaan oo kale oo laasqore agteeda ayaa iyaguna jira hilayo karin heegane iyo dhalan leh inaan si qaldan ugu dhawaaqaya laga yaaba laakiin waa laasqore agteeda shanta meelood wili fartoodii way gidaarey ku qoran tahay laakiin cid jibisay lama hayo oo imika tan faraacinta oo kale hieroglyphic sidee loo ogaado marka daan la jabin inay far tahay baa la gartay oo culimo loo diray oo qolooyinkan degalbaarista iyo waxa archaeologiga ayaa markay wixii eegeen waxay garteen inay far tahay imika hieroglyphic oo kale waxa jira fartan ay faraacintu wax ku qoraan 1820 ayaa la jabiyay dhagax la helay oo loo bixiyay Rosetta Stone oo imika Ingiriiska yaala madxaf British Museum la yiraahdo yaala ayaa qolooyin aqoonyahan ah oo cilmiga farxaya waxa afafka ku xeel dheer ayaa waxa isku akhriyeen saddex farood oo isdul yaalay tii hieroglyphic ahayd iyo tu kale oo ay iyaga laftigoodu isticmaali jireen faraacintu iyo Greek hore oo markaa la yaqaan wali la akhriyo karayo ayaa lagu baaray halka laga helay cirquna waxa weeyaan waxay markay farta qorayaan hieroglyphic waxay ku muujin jireen muxuu ahaaye xariijin ama goobaabo ayay magacyada boqorada iyo kale iyo ay ku muujin jireen dibeeta Alexander the Great iyo Cleopatra iyo dadka noocaas ayaa halkii Greega markii laga soo helay cirqa goobaabadan iyo goobaabadaas inay isleeyiin ayaa xaraf loo furay halkaas marka taariikhda faraha badan leemka faraacinta iyo waxa laga helay farta la furay bay ay ahayd wixii ku horreeyay 1820 fartaas waxay ahayd wax iska qorqoran sida tan imika halka ku qoran oo kale tan hadii la jabiyo waxa suuragal marka in cilmi badan macna ka soo laga heli karo iyaduna waxa meesha iyaduna ku jirta sumadahan aynu xoolaha ku dhigno geelo kala sumadahan aynu siino yaariga ayaa iyadana loo badinayaa inay tahay far hore Soomaalidu isticmaali jireen inay tahay oo imika mid walba hadaad aragto mid walba waxay leedahay magac si loogu dhawaaqay leedahay si loogu halka waxaad ka garan karaysaa ninaan saaxiibanayo soo ururiyay waxa uu sheegay inay 28 sumadood ay yihiin xuruftan carabiga oo 28 xaraf ma garatay marka hadii aynu dib ugu noqono taariikhda faraha hadii aynu dib ugu noqono waxa ilaa imika inta recordka lagu hayo ee diiwaanka lagu hayo ee qorani waxa la sheegay inay 3,000 sannadood ciise hortii oo noqonaysa muddo imika 5,000 sannadood laga joogo in fartan faraacintii hore ee hieroglyphic la yiraahdo in la qoray farta hieroglyphic ahi sidoo ayaantii horena ka sheekaynay waxay ahayd far shibanayaaluna oo aan shaqala lahayn
shaqala lahayn ha waxa ugu horeeya alif baa ugu horeeya oo shimbirkan aboodiga ahi sumadu yahay ayaa ugu horeeya alif la yiraahdo waxa ku xiga beta ku xigta oo ah lugta inteeda hoose oo bacdu ay ka imanayso beta af Soomaaligeena dee waa lug waa tan carruurta markay ciyaaraysa ay tiraahdo beta laabo waa lugtii weeyay ma garanaysa halkaas markaa ay farahoodu saasay markaa beetada ku xigta gambar baa ku xiga waxa ku sii xiga dhudhun baa ku xiga oo intaasi sumadiisu tahay sawir intaas ay tahay dhudhuna afarta xaraf ee ugu horeeya ayaa ugu horeeya fartooda haddaba qoladan Phoenician-ka la yiraahdo ee aan yaantii hore aynu ka sheekaynayno niri waa qolada fartii fudaydisay faraacinta Phoenician-ka la yiraahdo ee niman badmareen ahaayo dhulkan Sham deganaan jiray halkan Lubnaan imika ay tahay deganaan jiray ayaa kun sano ka hor nabi ciise oo imika noqonaysa 3,000 sanadood horteed fartii sawirada ahayd ee qofka caadiga ku adkeyd inuu qori karo qof artist ah mooyaane farshaxana mooyaane qof kale muu qori karo inuu ku adkeyd ayay fudeydiyeen ka dhigeen xariijimaha yaryar ee la fahmi karo qof walba qori karo dabeeto Phoenician-iskii waxa ka daba qaatay iyaga fartoodii laba dhinac bay noqotay dhinac waxa qaatay Greek-kii qadiimka ahaa Greek-kii hore ayaa qaatay dhinac kalena Aramaic qolo la yiraahdo oo afkan uu ku ay ka soo tafiirmayaan afkan ay ka soo tafiirmayaan cibriga iyo afkan Hebrew-ga la yiraahdo Yahuudi ku hadasho iyo Carabiga ay ka soo tafiirmayaan ayaa qaatay haddaba labada dhinac waxay ku kala duwanaadeen qoladan uu Greek uu qaatay waxa la yiraahdo alphabet baa la yiraahdaa alphabet waa tan qaadanay alphabetku markaa waxa ka sii hoos baxaygana Latinka Greek nimika jooga iyo muxuu ahaaye Cyrillic oo ah fartan Russian-ku ay wax ku qoraan Ruushku iyo Soviet-ka wadamadii la isku oran jiray fartan ay wax ku qoraan oo Cyrillic iyadana la yiraahdo ayaa ka sii qaatay English-kuna iyo tan marka inuu wax ku qorano halkaas ay noqonaysaa waxay ku kala duwan yihiin marka qoladan Aramaic-na waxa ka qaatay Hebrew-ga iyo Carabiga iyo Brahimi far la yiraahdo qadiim ah oo dalweynaha Hindiya faraha laga hadlay wax lagu qoro dhani ay iyaduna ay dabada ku hayaan waxay ku kala duwan marka labada dhinac qoladan la yiraahdo Greek la yiraahdaa alphabetka kuwan la yiraahdaa waxa weeyaan fartoodi waa alif A B C D E saasay u qormaysaa waxa weeyaan labadii dhinacba waxa isku dareen shaqalkiyo shibanihi qoladan kale Aramaic ee abjadka loo bixiyay ee alif ba saa u qoraya iyagu wax shibana mooyaan shaqal xuruufteedu kuma jirto ha oo Carabigu imika alif ba taasadu waxa weeyaan shibanayaal shaqalka wuxuu yaqaanaa saddex shaqal buu Carabigu leeyahay saddex xarako weeye kordhow hoosdhow iyo godaal ha waa fadxa kisra damma oo shaqaladii gaabgaabnaaya shaqaladan dheerna wuxuu yaqaanaa alif wow iyo ya oo imika markuu qorayo ban oo kala hadeen Carabi ku qoray imika ban ba iyo nuun baynu qoraynaa oo baadu kor dhamantay nuun kuna reeban yahay ban hadaynu baan qoraynana alif baa soo biiray alif baa raacaya oo shaqal dheer baa meeshii cibriguna isaguna ama Hebrew-gu isaguna wuxuu u yaqaanaa halka xarakooyinka nuquud buu yaqaanaa marka sidaas u kala duwan yihiin kuwan alphabetka la yiraahdaa kuma jiro shaqalku kuma jiro shaqal shibana isku jira abjadkana shibana shaqal baa isku jira alphabetna halka ka timid waxa weeyaan alif bito labada xaraf ee ugu horeeyay abjadkana wuxuu ka yimid afartii xaraf ee ugu horeeyay alif bito gambad iyo muxuu ahaay dhudhun ay noqonaysaa marka faraha adduunka imika horta wax lagu qoraa waa afar nooc weeye abjadka iyo waynaga sheegnay alphabetka aan isticmaalno ha syllabary ba ayaa jira kuwa la yiraahdo syllabary iyo logo syllabary waxa weeyaan far waxa Japanese-ka iyo wax ku qora iyo Korea waa farahooda syllabary marka waxa weeyaan in xarafkii iyo dhawaaqiisii sumad gaar loo sameeyo imika ba be bi bu bo Soomaa sida in mid walba sumad gaar la siiyo imika inaga ba wala iyadoo isku taala in sumad gaar la siiyo marka waxa weeyaan waxaan alanka la yiraahdo ee caraala alanka magaca ay bixinta alan kastaba oo afku leeyahay in la siiyo sumad u gaara imika Soomaaligan wuxuu leeyahay Soomaaha 22 shibane ayaynu leenahay iyo 5 shaqal 22 ka shibane lagu dhuftay 5 intaas marka farteedu ay noqonaysaa 200 iyo saayidka ayay noqonaysaa farteedu marka mid walba ba bi bo soo 5 maaha 5taasi beenay 5 sumadood oo gaar ah yeeshaan syllabary baa la yiraahdaa marka logo syllabary-guna Chinese-ka wax ku qoro oo waa fartan Chinese-ka oo 4000 oo waxay leeyihiin sumadood waxa weeyaan erey kasto afku leeyahay in sumad gaar loo sameeyo
yar weyn dhexe buuran Ha. in mid walba sumad gaar ah loo sameeyo marka 4000 iyo saa'id sumadood Ha. ayuu leeyahay oo macnaheedu yahay 4000 oo erey ayuu leeyahay Sida loo bartana waa adag. way adag tahay sida loo bartaa Chinese ko kaliya taa marka taa wax ku qora afartaa waxa soo raacaya tu abugiida la yiraahdo oo u dhaxaysa alphabetka iyo syllabary u dhaxaysa taa wax ku qorta Hindiya iyo Koonfur Bari Asia South East Asia kuwan la yiraahdo ayaa wax ku qorta Ibraahimiga Hindiga Bengaaliga Taamilka halkan kalena Barmiiska kuwan Barma la yiraahdo ama Myanmar Tayga Lao qaybtan Ethiopia laga hadlay kiiska la yiraahdo iyaduna waxay soo raacaysaa iyaduna kuwa la yiraahdo abugiida oo waxa u dhaxeeyaan alphabetka iyo syllabary-ga ayay u dhaxeeyaan oo imika Ethiopian ka hadaad eegto markay qorayaan laba goob ay qoraan muu halkaas xariijin laga sameeynaya dhinaca muu laga sameeynaya mi saasa la oranaya ya me wasan mo marka waxa weey mid walba sumad bay iska leedahay hadana sumadahana waa la akhriyi karaayo oo ma aha kuwi syllabary-ga gaarka ah ma aha oo imika uudaasi halkaas mid walba uu laga raacinaya imika haadi waatan dhinaca ka raacaysa ha waa sida ha markaad huu doonayso dhexdaad ka raacinaysa dhexdaad la raacinayo waa la fahmaya inay uu ka dhigayso oo hadana alphabetna ma aha syllabary-na ma aha marka abugiida la yiraahdo kuwaas oo labadaasay ayay u dhaxeeyaan kuwaas amxariga weey amxariga marka waa giciska kuwa la yiraahdo amxariga tigreega muxuu ahaayay guraagada kuwa weeyaan صح وهاج إن بالهذا إنه صار نقولنا مركا إن قيبتن إنه قانو كتر سنة أما الصومالي وهوست جيو إيو إن فرت الصومالية إن وسؤال فرت الصومالية هي هرتا لبضع فراد لبضع دينعتين نقولنا واحد إنه لبيه تضبط كل قاطع إن دينع نقولناش صح يجدوا أن تاريخ الصومالية أنا هرتا آد نيو لودرسين حلقة أن آد لودرسين أو أدويد واحد كتر تنتهوا تاريخ ها هذا لكن لبيه تضبط كيف نرشي أترى هذا ده واحد نقولنا سأل ما يروح يالو إمك أنت أبيدنا حلقة أي هيدا إمك إنه كشيء كأنه هي جدود حركة أيوه جدود حركة أيوه حلقة إنه كشيء كأنه إنه فرتين أي فرح رئيس أحد أنت هلا جود على ما بيه هيدا هرت حلقة حرة فرتين الله أيوه إمك فرتين وقته إنه ألفابيتك ودبول أيوه وقته صوبته أن ألفكو وحي نوجمدي هاي شبناياشين أيوه كتير وإنه أيام تورنا وحوار كثير تعبان حتى نسيد الله ما استعماله ألف كيسليسة الله ما استعماله أو سيس ومهر كلين وأنا تكنت إنه وحياة بدن أي مرجان قبية بدن أي تماطو تكنت إمك محو هاي ألف كصومالي جاهي ألف كوين أيام تورنا اللي قلت الاستقبال هذا وحوي طوب حرن أو إنه طوب حرن بيسو أيام موتة شغل يشي بنانا أنت لو كلا قرتها واسدا لو كلا قرتها واسدا واحد شرح حروف اللي هذا سيمي فاولز oo shibanayaasha kamida oo semi vowels leeyahay shaqal lamood la oranayo waxa kamida haada wada yaada alifka waa kamid semi vowels baa leeyahay hadii aynu ayaantii hore sheegnay inuu dhiri labadan vowelka iyo consonantka waxa u dhaxeeya waa sida ay u soo baxaan dhawaaqa ha oo midi hawadan dhalinaysa wax huristaaga kalama kulanto xayndaabkan afka halka kuwan kale ay huristaag hawadu la kulanto shibanaha markay tahay huristaag oo imika ba ma هودي بان حكينا هورستاج بايند لكن شغلada هورستاج ما jiro اي او wax horistaag ma jiraan kuwan hadaba waxay semi vowel loo yiri hawadooda waxa weeyaan waana la yar xakinaya hadana toos looma xakinayo imika wa hadaan raahdo wa hawadii aad looma xakin aad looma xakin wa baan ya ma arkaysa aad loo ha hawadii looma xakin aduna waa la mid alifki hawadii aad looma xakin laakiin marka taadaan raahdo hawadii waan haki markaas semi vowel baa la raahdaa suugaanteena markaynu tirayno waa tan lagu daro yaada iyo hada iyo maansada waa tan shaqalka loo tiriyo ya shaqalka loo tiriyo shaqal ahaan loo raaciyo markaas loo tiriyo meesha imika imika jacayl oo kale imika hadaan raahdo su'aalka ay kuma jirto shaqal dheerna way noqonaysaa shaqal dheer bay noqonaysaa jacayl oo kale noqonaysaa labadaba way noqotaa imika haadu meelaha dhexe haday labada dhinacba ay shaqal ka maro way baaba'daaba ahaan aan baad ka noqon kartaa ma garatay marka semi vowel baa la yiraahdaa kuwa alifkana marka wuxuu kamid yahay semi vowel isku kamid yahay halka marka lagu dagmayo ee la isoonayo alifkani waa shaqalun la oranayo oo aynu ku koobnay alifki ma aha isagu waa shibane oo imika markaan qorayo shaqal kasto xaraf kasto oo ku bilaabo erey kasto oo ku bilaabo waynaga niri
shaqal ku bilaama alif ku bilaama macnihiisu weeye alif ku bilaama oo imika haddii aad qorayso aal waxa weeyaan alif waa inuu kaaga horeeya imika markaa waxa uu la mid yahay sidan markaynu qorino ba be bi bo bo ayaa a e i o waa inuu laba xaraf inoo noqda shaqal iyo xarako shaqal iyo shibane ya oo imika haddaynu dee sumadu qaadanayno b oo kale p waynaga ka tagnay Soomaaligeena p da waynaga ka tagnay haddaynu b da imika sumad alif u qaadano ya markaynu aadam qorayno p baynu ku bilaabayna sababtaa in markuu magacii waa in xarafka koobaad la weyneeyo soo ma dee imika aadam waa laba a soo maaha dee labadaba waa inaad wada weyneysaa ilaa waxaynu ka dhiganay way wada socdeen labadooda waynu weyneynaa laakiin imika aadam iyadoo sideedaa u qoran haddaynu b ka horreysinayno alif u qaadanay b da b dun baa la weyneynaya sumadaa aynu alifka u qaadanay un baa la weyneynayaa ya sax waa hagaag bal hadda qoraalkan afka Soomaaliga ayaynu hadaba gooni u geli doonaa iyo qabyooyinka ku jira oo ay kamid tahay marka tanaad sheegaysay oo kale intaynaan taagelin qoraalka afka Soomaaliga waqtigii la qoray 27kii bal guulaha fiican ee la gaaray maxaa kamid ah horta xilligan iyo nimankaasi gudida afku dadaal xoogan bay sameeyeen fara badan bay iska rabiyay oo socday oo qaarkood ay ahaayeen faro xeru dhalan ah oo aan meel laga keenin oo niman Soomaaliyeed inta ikhtiraaceen Yuusuf Cismaan Kennedy baa kamid ah waxa kamid ah fartii loo bixiyay Gadabuursi ama loo bixiyay iyaduna waxay ahayd fargaara kadara kamid aha farar waxa jiray sidaas ahoo muxuu ahaayee xeru dhalana iyo qolooyin kale oo iyagu fartaan Carabiga watay iyo qolo kale oo tan Laatiinka awti sax ayaa jiray tan aynu qaadanay hadaba dood badan adag ba ka dhalatay dood adag ayaa ka dhalatay farta la qaadanayo markii gudidu qiimeysay waxa la yiri madbacadaha aynu haysano labadii dhinacba yaala koonfur iyo waqooyi labadii dal isku beer madbacadaha yaala laba gumeysiyo joogay Ingiriis iyo Talyaani waxay ka tageen madbacadaha iyo taababkii wax lagu garaaci jiray waxay dhamaantood ahaayeen Laatiin halka kharash baa inaga soo kordhay in aynu qaadano wax kale inaynu qaadano kharash baa inaga soo kordhay tan Soomaaliga tan aynu isku qaadano marka Laatiinka ah oo inoo dhib yar xagga kalena iyadoo qabyooyinkan aynu sheegayna qaarkood way ku baraarugsanayeen gudidu oo imika shaqalka culus iyo shaqalka fudud gudidu way ku baraarugsanayeen inay kala jiraan shaqal fudud iyo shaqal culus oo imika dul iyo dul sug iyo sug imika sug adaa ku dhahdo way culus tahay haddaan sug arrinka sug ku idhahdana way fudud tahay duul iyo duul ya duul baa ina maray iyo duul oo amarkiya labaduna waa fudeed iyo culays way ku baraarugsanayeen gudidu laakiin se waxay sidaa u yeeleen inaan wax loo samaynin kala soocaya labada waxay u yeeleen si loogu fudaydiyo dadkii faraha badnaa la gaarsiinay waxa la doonayay ololaha la qaaday ayaa la qaaday ololahaasi wuxuu ahaa in dadka oo dhan afka la baro Soomaaliya dadku ay fartooda qoraan oo literacy kor loo qaado dadka wax qori kara kor loo qaado taas markaa keenaysay in aan sumada loo sameyn laakiin way ugu tala galeen in markay dadku horta intan wada bartaan in qorshaha labaadi uu noqdo in fartii sumada loo yeelo taasina ma dhicin darno ismeeno waxana waa isku dhigid kala dhigid bay dhahdeen halka marka ilaa imika inaga jirto dadal qaafka Soomaaliga uu kaga jira waa isku dhigid kala dhigid iyo mid kale oo iyaduna ah sida loo dhigaa sida loo dhaho ayaa loo dhigaa imika ninka dee xamar jooga xuleey buu oranaya xuleey dee xuleey ayuu haduu qoro anna aan xuleey qoro mid kalena suuyeen uu qoro suuyiri suuyeen ya dee waxa weeyaan Djibouti laga qoro dee ka iri waxa ka iri dee waxa weeyaan fartii baa murgaysa markaas oo ma baxlayso sida loo dhaho ayaa loo dhigaa waa qalataasi sida loo dhaho in loo dhiga maahay waa inuu afku yeeshaa nidaam beegal ah oo standard ah imika Englishka oo wadamo badan laga hadlaa Mareykan oo kale wuxuu leeyahay dee lahjad u gaara sax UK-na lahjad gaara bay leedahay boqortooyada Ingiriisku lahjad gaari leeyahay imika markuu unity qorayo unity marka la qorayo ninka Mareykanka isagoo unity dhac ka dhigay taada dhac ugu dhawaaqaya haddana ma qoro sidoo u dhaho ma qorate hada English sida loo dhaho looma qoro qaab beegal baa jira ya oo standard ah oo la isla yaqaan ayaa jira af Soomaaligana marka imika waxa loo baahan yahay in nidaam beegal ah la sameeyo qolooyin badan oo waxa aan arkay aqooyaha ah oo waliba afyaha ah oo ku doodaya in af Soomaaliga sida muxuu ahaayay la isku raacato loo badan yahay laajada loo badan yahay la isku raaco taasi horta ma ahaba dee dood sax uma arkaayo anigu oo af Soomaaliga in cid lagu raali galiyo ma
in la yidhahdo waqooyi baa ayaa loo badan yahay idaacadaha iyo waxaa laga hadlaya waqooyi ha la qaato ama koonfur ha la qaato ama ha la qaato soomaali galbeed ama jabuuti ha la qaato ma aha ama NFD ha la qaato ma aha macnuhu waxa weeyaan af Soomaaligan waa hal af midun baa saxsan eri marka loo eego marka kuwaynu ku kala duwanahay waa ereyo eri kasta marka la eego la yiraahdo ereygani asalkiisu keebu ahaa in asalkiisu loo noqdo dib loo baaro imika muxuu ahaay dhaqaaji baan ku yiri dhaqaaji soo halka kama dhigin de dhaqaaq buu ereygu ahaay inaan jac qoran maaha ereygu asalkiisu dhaqaaq buu ka yimid ya dhaqaaq buu wayna dhaqaaq qoraa dhaqaaqi wayna qoraa laakiin aan anigu dhawaaqa dhaqaaji markaan dhawaaqayo xamar imika wuxuu oranaya wali dhirjiyay ya wuu dhirjiyay gaadi buu isla ka dhigaya maqras waxa weeyaan marka inaanu isaguna wuu dhirjiyay aanu qorinay wuu dhirgiyay oo qorow gaadi qorada maqras iyaguna waxa jira dhacda iyo raacda jira iyaguna dhacda iyo raacda horta dhac kasta koonfur laga ma dhigo dhac kasta laga ma ha dhacda ay raacda ka dhigaan waa dhac fudud laba dhood buu Soomaaligu leeyahay Soomaaligeenu laba dhood buu leeyahay dhac culus iyo dhac fudud meesha dhacda fudud ku jirto bay raac ka dhigaan ma garad marka waxa weeyaan halkaasi inay dhacdo horta ay salkii tahay oo asalkii tahay ninaan saaxiibanahay oo Cismaan Cabdinuur Xaashi la yiraahdo ayaa buug dhawaan qoray buu gartaa ku qaadayba oo labada dhinac kii qaldan iyo kii saxsan ya ayuu qaaday dhacda yarada qumanaanta dhacda iyo qalocnaanta raacda ayuu yiri marka wuxuu garta u qaadaya wuxuu leeyahay erey kasta wuxuu soo qaaday imika gad oo kale soo qaadaya gad buu onaya markay dhac tahay waa gad uun erey kale oo magaca la wadaaga ma jiro macnaha la wadaaga laakiin markaynu gar ka dhigno aynu halkii dhacda ahayd raac ka dhigno teebaad u jeedaa baa lagu oranayaa ma gartii saxsanaanta ahayd ya ma garkii xadhiga ahaa garteed u jeedaa ma garatay marka waxa weeye marka si cilmiga loo eego dhacdaa sax hadaba tan la leeyahay cid ha lagu raali geliyo inaan cid badda la qaadin afkeeda Soomaaliya ku heshiin maysa hadii la yiraahdo waqooyi baa la qaatay ama koonfur baa la qaatay ama meel baa la qaatay hadii la yiraahdo waa in afkiis isaga la raali geliyo waa in isaga la raali geliyo ereygaas inta asalkiisa lagu noqdo kii saxda ha la qaata markaas cid sax ha badato marka imika waxa jira ereyo ay noo ku saxsanaanayno waqooyi ahaan oo badan ereyo ay koonfur ku saxsanaanayso noo jiraan ereyo ay Djibouti ku saxsanaanayso imika Djibouti waxa jirtay dabaal iyo badaal keeba saxa gaariyaaba ka hadlayay oo laha ereyga badaal baa saxa oo waa bad ereygi badaal weyde qofkii waa badaalanaya waa badaal ereygi bad biyaala ha marka hada iyaga ba ku saxsanaanay magarad marka in ereygi inta sida loo eego etymology ahaan sidoo ereygan isku rogrogay la eego keeba marka u dhow saxda u dhow inta halka la maro laakiin la oran sida loo dhaxo ayaa loo dhigaa aan la oran afna ma jira adduunka sida loo dhaxo loo dhigo ya marka xeerka guud leeyahay af kastaaba nidaamkan loo qoray waa nidaam beegal ah oo la isla raacay weey oo sugan imika marka Englishka am la leeyahay marka la leeyahay ay amba la qoraya marka ay formal ka tahay ay amba la qoraya laakiin amba ugu dhawaaqaya magarata waa taa marka taas aad waa tahay daawadayaal barnaamijkii fankii sugaanta todobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa aad ayuu mahadsan yahay guulad ayaan la Axmed Cumar oo barnaamijka aan ku wareysanayay oo markaasi aanu qayb dambe halkaas insha Allah aanu ka sii amba qaadi doonaa hadii ay bowraali ka noqdo Cabdiwali Samri oo dhanka duubista iga taakuleeyay iyo Cabdicasiis Mursal Jimcaale Cali Baadiye dhamaantood aad bay u mahadsan yihiin tan iyo kulan dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi وبركاته.